Assalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada YouTube channelkayga. Maanta waxaan kula wadaagayaa qodobo ku anfacayo haddii aad tahay hooyo ugub ah ama cunugii koowaad caloosha ku wada. Waxyaabo badan oo hooyada xilligaas ay dareemayso oo normal ayaa jiro, laakiin maadaama hooyada aysan aqoon fiican u lahayn cunugeedii koowaadna ay wado, waxaa laga yaabaa inay walaac ku dareento ama ay u aragto waxyaabo abnormal ah. Qodobka koowaad oo aan soo qaadanayno wuxuu yahay dabeecadda hooyada oo isbedesha. Waa wax caadi ah in hooyada dabeecaddeeda ay isbedesho xilliga ay uurka leedahay, gaar ahaan bilooyinka ugu horeeyo, waxaana keena oo sababo isbedelka hormoonka ee ku imaanaya jirka hooyada. Qodobka labaad oo hooyada ay dareemi karto wuxuu yahay isbedel ku imaanaya xagga cuntada. Cuntooyinka qaar inay hooyada nacdo, kuwa qaarna ay jeclaato. Sidoo kale carafti ayaa la mid ah, carafta qaarna way jeclaanaysaa, qaarna way nacaysaa. Xaaladaas oo kale hooyada ugubka ah ama uurjiifka koowaad wado haddii ay isku aragto waa xaalad iyadana normal ah. Qodobka saddexaad oo aan soo qaadanayno wuxuu yahay hooyooyinka qaar waxay isku arkaan hurdo yari ama isbedel ku imaada xagga hurdada. Hooyooyinka qaarna hurdada ayaa ku yaraata oo way ka tagtaa, halka hooyooyinka qaarna ay maalintii oo idil ay rabaan inay iska jiifaan. Cilad dhanka hurdada ahna hooyada way isku arkaysaa. Hooyada ugubka ah waa inay ogaato ciladaas. Haddii aad hurdo yari isku aragto, waxaad ku daaweyn kartaa inaad qaadato fitamiinada sida multivitamin oo kale, sidoo kale fitamiinka uurka ee hooyada loogu talagalay inaad isticmaasho. Socod inaad sameyso maalintii, waayo markasta oo uu jiifkaagu badan yahay ama aad sariirta saaran tahay, hurdadu way kugu yaraanaysaa. Inaad socod sameyso maalintii waxyaabaha hurdada kuu keenayo ayay ka mid tahay. Qodobka afaraad waxa uu yahay isbedel ku imaanayo miisaanka. Hooyada haddii ay uur leedahay, miisaankeedu waa uu kordhayaa, waana wax normal ah oo dabiici ah in hooyada miisaankeeda uu kordho oo uu isbedelo. Qodobka shanaad waa dhabar xanuun xilliga uurka ay hooyooyinka dareemaan. Haddii aad xaaladaas isku aragto, marka ugu horeysa dhakhtarka booqo, baaritaan isku samee. Haddii baaritaankaas jawaabtiisa uu dhakhtarka ku yiraahdo wax walba waa okay, waxaa dhici karto in miisaankaaga uu yar yahay, taasina ay sabab u tahay dhabar xanuunka. Waxaa kaloo keeni karo in jiifkaaga uu badan yahay, mar walbo dhinaca aad dhulka ku haysidna dhabar xanuun ayaa ku imaanayo. Ayadana waa laga yaabaa inuu istaagaaga badan yahay, ayadana dhabar xanuunka way keeni kartaa. Xilliga uurka hooyooyinka badankood way dareemaan dhabar xanuun. Waxaad sameysaa haddii baaritaankaas aad isku sameyso xaaladaada ay okay tahay, socod samee. Qodobka lixaad, la soco miisaanka uurjiifkaaga, gaar ahaan haddii aad ugub tahay, tan zaa'id ayay muhiim kuugu tahay, ama uurjiifkii ugu horeeyay aa wadid. Waa muhiim inaad la socotid miisaanka uurjiifkaaga, wax badan ayay kaa caawin doontaa. Qaabka aad ku ogaanaysidna waa inaad kombiyuutar isa saartaa. Qodobka toddobaad, la soco cadaadiska dhiigaaga, blood pressure-kaaga waa muhiim. Laba hab buu noqon karaa, inuu dhaco oo uu yaraado, waxaana keeni kara hooyooyinka zaa'idka u mataga. Ugu dambeyn isbitaal ayaa la seexiyaa, faleembooyin ayaa lagu quudiyaa. Iyo inuu kor aado oo uu kaco, ayadana waxaa imaan kara dhiigkarka uurka. Labada marba waa halis. Mar walba la soco cadaadiska dhiigaaga inta aad leedahay uurka. Qodobka sideedaad, ka fogow wax walba oo walwal kuu keeni karo ama diiqad, waayo saameyn ayuu ku yeelan doonaa uurjiifkaaga. Haddii aad dhasho kadibna waa uu sii gudbi karaa. Ka fogow wax walba oo diiqad ama walwal kuu keeni karo inta aad uurka leedahay haddii aad tahay hooyo ugub ah. Qodobka sagaalaad, haddii aad xaalad dareento, qofka ugu horeeyo ee aad la tashanayso ha noqdo dhakhtarkaaga, waayo dadka ma ogo miisaanka uurjiifkaaga inta uu marayo, ma ogo adiga xaaladaada sida ay tahay. Mar walba oo aad bini'aadanka la tashato waxay ku dhihi doonaan cunto badan cun, heblow samee, iyagoo ogeen miisaanka uurjiifkaaga inta uu yahay. Mar walba dhakhtarkaaga la tasho. Haddii aad xaalad dareento, asaga la xiriir, asaga booqo, bishiiba hal mar booqo. Qodobka sagaalaad wuxuu yahay fikradaha qaar ee dadka ha ku degdegin. Qodobka tobanaad,
qaado fitamiinka xilliga uurka hooyada loogu talagalay ee loo yaqaano folic acid. Kan wuxuu ka hortagaa in uurjiifka uu ku dhasho bila dhiman, sidoo kale in asoo xubnihiisa qaarkood ay abnormal yihiin inuu dhasho ayuu ka hortagaa. Qadarka Rabbi waa gooni, laakiin dadaalka samee oo kiniinigaas qaado. Qodobka 11aad, mar walba ha ilaawin inaad biyo badan cabto. Markasto si aad u noqoto qof jirkiisa uu qoyan yahay, biyo badan cab. Ayadana wax badan ayay kaa caawin doontaa. Qodobka 12aad, samee socod. Tana muhiim ayay kuu tahay. Waxyaabo badan ayayna daawo u tahay. Haddii aad tahay hooyoguba oo uur leh, ha ilaawin inaad maalintii socod aad samaysid. Qodobka 13aad ee ugu dambeeya, mar walbo ku xirnaaw dhakhtarkaaga. Dhakhtarka mar walbo booqo. Xaaladaada la soco, mida uurjiifkana la soco. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.